ku ballansan yihiin kulankii saddexaad oo ah kan u dambeeya wareegyo wada hadal oo labadan dal ay ku galeen Ankara iyo Nairobi ayaa dawladaha Mareykanka iyo Turkigu ay bilaabeen dhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo ay ugu cadeynayaan Ethiopia in aysan marnaba isku dayi karin wax dhaawacaya madax bannaanida dad iyo dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya waxayna sheegtay Mareykanku inay muhiim tahay in laga dhabeeyo wada hadalka lagana run sheego in fariintan la geeyo Addis Ababa waqtigan waxa loo arkaa goodi ay dalalkan u jeedinayaan dhinaca Ethiopia oo ay u cadeynayaan mowqifkooda ku wajahan isku dayga Ethiopiaanku sida uusan mira dhal u noqon karin Mareykanku Addis Ababa iyo Muqdisho waxa uu diray erga diblomaasiyadeed dawladda Mareykanku oo saameeyaha ugu weyn ee amniga iyo siyaasadda Geeska Afrika ayaa bilowgii isku dayga Abiy Ahmed ee baadi goobka u sheegtay in tallaabooyinka uu qaaday ay ka dhalan karaan xiisadaha amni darro oo abuuri doona in geesku mar kale aada deganaansho la'aan baahsan taasna miraha ka dhasha ay halis ku noqonayaan masaalixda Mareykanka ee gobolka loona baahan yahay in Ethiopia ay dib uga joogsato oo ay garowsato xaqada inaysan Soomaaliya ka heli karin marinbadeed xooga iyadoo la eegayo waliba xasaasiyadda ay kala qabaan labada shacab oo ah mid waligeed soo taagnayda Ethiopia fariintan uma aragti wanaagsan oo dhankeeda wax u tari karta sidaas oo kale isku dayo ay bilowday Washington oo la xiriiray in la gaaro isfaham waara oo hogaamiyaasha labada dal ayaa fashilmay markii ay Soomaaliya diideen inay la fariisato Ethiopiaanka iyagoo aan ka laaban isafgaradka ay la saxiideen Somaliland aagan waxa loo arkay inay ahayd arrin wanaagsan laakiin Mareykanku laga diiday ha yeeshee ay Soomaaliya ka aqbashay Turkiga waxa loo arkay fariin ka caraysay dhinaca Washington haddana Mareykanku ma muujin karno uma sheegin damacooda cusub ee arrimaha Soomaaliya adeega Wire Nations waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga Yurub ama Canada aad ehelkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda Play Store ama App Store Wire Nations adeeg loo bogay lana mahadiyay maalmo ka hor dhinaca Shiinaha wadahadaladii intii ay socdeen u dhaxeeyay Shiinaha iyo Afrika madaxda qalal ka mid ah qaaraddan Afrika waxay dadaal xoogan geliyeen gaar ahaan madaxweynaha Djibouti sida ay isku arki lahaayeen Abiy iyo Xasan Sheekh arrintana hoos loogu dhigi lahaa laakiin waa lagu guuldareysay qabashada shirkaasi sabab la xiriirta in Soomaaliya ay diiday inay la fariisato dhinaca Ethiopia ergeyga Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika Mike Hammer oo tagay Addis Ababa iyo safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya ayaa labaduba iska daba hadlay wax ka yar 24 saac oo isla qadiyadan u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia ay ka hadleen in diblomaasiyiinta Mareykanku si furan u sheegaan in loo baahan yahay xal in la gaaro iyadoo wada hadalka Ankara 3 bari ka dhiman tahay waxa loo arkaa fariin aan caadi ahayn iyo tuhun cusub oo ay qabto dawladda Mareykanka oo ku wajahan xiisadda Soomaaliya iyo Ethiopia Hammer ayaa u sheegay Ethiopia isagoo Addis Ababa jooga inaysan Mareykanku gorgortan ka galeyn madax bannaanida dal iyo dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya ayna qasabtaa in la dhowro lana ixtiraamo oo haddii lagu xadgudbo ay noqonayso mid duulaan cada gobolkana aan u wanaagsanayn ergada Mareykanka ee Geeska Afrika iyo Soomaaliya waxa kale oo ka dhex muuqda dhawaaqooda cusub shakiga Ethiopiaanku inaysan wali dhabta u degin kuna dhiiran yihiin ku socoshada damacooda bahalnimo ee ka dhanka biyaha Soomaaliya taasoo nabadgelyada Geeska Afrika oo aan deganayn ka dhigaysa mana cidna saadaalin karin halka ay ku dambeyn doonto sida ay qabaan dad badan oo wali sheegaya in Abiy Ahmed iyo xukunkiisu ay maanka ku hayaan ficilo halis badan oo deganaanshaha la dagaalami doona Mareykanka oo Soomaaliya digniis u diray Galen Media waxay ogaatay in toddobaadkii hore madaxda Soomaaliya ay heleen fariin uga timid Washington oo ahayd in laga baaqsado hadallada mar kale sii kicinaya xiisadda labada dal iyo dhaqyada gobolka ka dhigaya mid aan deganayn Soomaaliya waxa looga digay in tallaabooyinka qaarkood ay noqon karaan kuwa Ethiopiaanka damacooda marmarsiyo ay ugu helaan taasna looga baahan yahay in Soomaaliya dib uga fakarto si ay dhinac kale uga wajahi lahayd Washington ayaa dhinaca Abiy u sheegtay in xaalka hadda meesha uu marayo ay ka abuurmayso marxaladan caadi ahayn oo xataa dhinaca Ethiopiaanka faa'iido weyn aan u lahayn ayna ku abuurmayaan dhinacyo badan oo danahooda ka dhaxarka damaceeda bahalnimo oo aan xaqada gobolka la jaan qaadayna maxay ka walaacsan tahay Mareykanka arqamka Kaleshwa waa guri si casri ah loo dhisay oo ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Kaleshwa waa guri leh adeegyada aasaasiga haddaba haddii aad danaynayso inaad magaalada Nairobi aad guri ka iibsato nagala soo xiriir telefoonada shaashada ku qoran in diblomaasiyiin sare oo Mareykan iska daba hadlaan hal qadiyad iyo hal aragtina u sheegaan Ethiopia in madax bannaanida Soomaaliya aysan gorgortan lahayn dhinaca Muqdisho ay ku wargeliyaan hadalleedu ay helis yihiin waxay muujinaysaa cabshida laga qabi karo gobolka oo galaad deganaansho la'aan baahsan ay dhowdahay qolo kastana xoogga saaraysa sida ay uga hortagi lahayd gaar ahaan Mareykanku cidda ugu ballaaran ee arrintan ay saameyn doonto maadaama labada dalba ay xiriir dhow la leeyihiin isqorka gobolka Geeskuna uu mar kale taagan yahay
maraykanku maxay ka rabaan in Ankara ay ka soo baxaan toddobaadkan. ilo waladii xil ka soo kasan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa u sheegay Galen Media in dowladda Maraykanku ay doonayso in wareegga Ankara ee Soomaaliya iyo Itoobiya wada hadalkooda lagu gaaro isfaham wada jira oo la saxiixo oo labada dalba ay aqbalsan yihiin kaas oo sidoo ku imaan kara ilaa hadda aan suurad xataa laga haysan maadaama Itoobiya iyo Soomaaliya tani markii ay ku kala tageen fadhiga ugu dambeeyay ay sareeyeen hadallada ay adeegsadeen oo dhammaantood ahaa kuwa ka baxsan xayndaabka dalal wada hadlaya iyo diblomaasiyadda. Soomaaliya 48 saac la soo dhaafay waxay sheegtay in Itoobiya ay ku hubaynayaan jamhado oo ay dalkooda ugu yeerayaan inay saldhigyo ka samaystaan. dhacdo kale waxay Itoobiyaanku inay kordhiyeen joogidooda xuduudaha ay la wadaagaan Soomaaliya gudahoodana bulshada u sheegaan hadallo kicin oo ku wajahan in xaalka labada dal la gaarsiiyo heer xasaasi oo dagaal ay dhici karaan tan oo dad badani ay aaminsan yihiin inay muujinaysa labada dalba inaysan waxba ka soo bixi karin wada hadal aan kala ku yeeshaana. suuragal ma noqon karaa doonista Maraykanka ma sahlana in Soomaaliya iyo Itoobiya ay kulanka soo socdo oo Ankara ku gaaraan heshiiska madambays oo qadiyada ku saabsan. dhinaca Itoobiya lagama sugayo inay ka laabato MOU-gii ay la gashay dhinaca Somaliland taasoo haddii aysan dhicin aan dhanka Soomaaliyana marnaba laga sugayn inay u hoggaansato damaca Itoobiyaanka iyo xataa wax u dhow oo suuragal noqon kara.